maalintii arrinkaas u dhacay mashaakilkaa istarayskii iyo broblemkii ugu dhacay maa seexan waayo dee rag hore nin bas taleefon ahaayo $400 waddanka looga mustaafiriya 5 sano xadhiga lagu xidhay baan isku taagnaa markii arrintaas ugu dhacday aniga waxay igu dhacday inaan istarays seexan waayo oo problem igu furmo oo baqdin iyo cabsi gaarigii booliisaan meel arkaya baysaado tologaadii kubaayadu weeyaa dhibaatada ninkaas soo gaadhay wallaahi adigaba way ku soo gaari karaysaa haddii aad ku nooshahay qaaradda yurub ama ameerika ama qurbahaba xawaaladda dahabshiil inaad isticmaasho waxaan kaa codsanayaa qof kastoo muuqaalkani soo gaadho inaad laygarayso sheergarayso meel fogaarsi weliba dhammaystirato ma ku nooshahay qaaradda yurub ama ameerika ama qurbaha mase isticmaashay xawaaladaha dahabshiil iyo xawaaladaha kaleba sharcigaagii ma la koobigaraystay oo xawaaladdu ma haystaan khatar waxaad ugu jirtaa adig iyo argagixisay in lagu talaysu ka geliyo mustafa saalax ayaa ila soo xidhiiray oo dhibaato ka sheeganaya xawaaladda dahabshiil waxaa cusub maanta abti waxay igu dhacday hawl igala kulatay kabarigan dahabshiil oo dhibaatada ninkay soo gaadhay maxay tahay intaanan warayskiisa kula wadaagin aan iyar kuu jilciyo qof kasta oo xawaaladda dahabshiil ku xidhan waxay ka koobgaraystaan sharcigiisa si mar kasta uu imanayo uu lacagta u dirsado sharcigiisa koobigiisa iyagaa haystaa haddaba dhibaatada halistaa waxay tahay sharcigaaga koobiga ah in dadyo kale ay isticmaalaan oo lacaga loogu diro miyaad og tahay mise ma ogid waa muhiimadda nuxurkan iyo qodobkan iyo dhibaatada ninka soo gaadhay marka koowaad mustafa saalax waxaan weydiiyey marka qof lacag ka dirsanaya xawaaladda dahabshiil shuruuddooda ay ku xidhaan maxay tahay waxay ku xujaysaa horta ugu horreyn sharciga ay kaa koobi garaynaysaa iyo telefoonkaaga lambarkiisana way kaa qaadaysaa dabadna telefoonkaaga lambarkiisuu ku weydiinayaa waxa u soo baxaya magacaagii haddii sharcigaagu dhaco lacag kuu diri maayaan intaa waa ila fahantay baan filaya wuxuu yidhi sharcigeygii bay iga koobgeysteen lacag baan ka dirsan jiray lacagtiisaan uga dirsan jiray kabacdi maxaa dhacay waxaan macmiil u ahaa xawaaladda dahabshiiloo lacag ka dirsan jiray magacaygii ayay isticmaaleen $60,000 bay ku direen magacaygii shirkadda dahabshiil waxay u direen koonfur goboladan ay al-shabaabtu joogto sharcigiisii ayaa waxaa loogu diray kumanaan dad oo kale ah lacag maargagixisa ma dadka dhibaatada geystaa weliba waxaa la yaab mudan goobaha lacagta lagu diray majority waad yaabaysaa lacagta horta lagu diray sharcigiisa waxa weeye waa lacag ku dhow $60,000 lacag 5,000 iyo 6,000 oo Soomaaliland iyo Puntland lagu diray mooyaane inta kaleba waxaa lagu diray goobaha argagixisadu ay ka arrimayaan $60,000 bay ku direen magacaygii shirkadda dahabshiil waxay u direen koonfur goboladan ay al-shabaabtu joogto 6,500 oo wajaalaayo 6,000 garawaa mooye inta kale waxay u direen koonfurtu waxaa loo diray lacagta marko baydhabo jilib waa dee dhulka al-shabaabtu joogto arrintaas markii ay ku dhacday ee dahabshiil uu la xidhiidhay ee arrintii u sheegay waxay ku yidhaahdeen sharcigaaga waxaa lacag laga diray baraajka noocaasa ninka noocaas haysto weliba lacagtaa ciddii dirtay baraajkaasaa diray bay idhaahdeen ninkii baraajkii baa u tegey wuxuu u dafuro uu dhaartay markaa ka soo dhaqaaqay buu kiliibii diray wuxuu yidhi niyow $9,000 baan diray kiliibka waa kuu soo dirayaa baraanjigii markuu tegey markii hore wuu dafiray oo wuxuu yidhi lacag sharcigaaga lagu diray ma jirto wuxuu yidhi markaan ka soo dhaqaaqay ayuu cod iga soo daba duubay oo uu leeyahay $9,000 baa sharcigaaga lagu diray waxaan intaa kugu darayaa weliba oo hadda ii soo baxay labada lacago ee kale ee aad ka hadlayso ee axmed cabdiraxmaan haddamay garat kabacdina waxaa sameeyey niman odayalaan ka haystay ninkii baan u tagnay ninkii dafilayey ee lahaa lacag sharcigaaga laguma diray markii dambe lahaa $9,000 baa lagu diray wuxuu markii dambe qirtay in sharcigiisa la koobigaraystay lagu diray lacag dhan $60,000 wuxuu isku dayay inuu la xidhiidho shirkadda dahabshiil wiil wabti u yahay dahabshiil waxaan la xidhiidhay cabdiraxmaan cali cabdo dahabshiil abturu u yahay wuxuu niyo turkigaan joogaa anigu arrinkaa waxba kama qaban karo waxaan la xidhiidhay muuse oo shaqaalaha shirkadda ka mida waxaa leeyahay muuse inaa cilmi dheere weeye oo naamka raxmada guud ahaan nimankaasi waxba ninkii umay qabanin waanay ku gacan saydheen haddamay garatay arrinku sidaa markuu dhacay
اللي يريها ولا صول في العتينا ولا قد الصدق وإحنا كمان قبل كرتين نفتي سنة هرس كجرتو ولقى الدولة دي إنجليز كنا يتري شركة العالها فعلا قد عشورها صوب أرنكا أريد واحد شفت الدولة وحي صدرتي ورغل عشورتها واللي هي لعق بلبا درتي كسو شركة لوير كواتن وسارة فاينانس ويسوي الشركة أو دري مايو وسارة فاينانس هي اللي سمضى بحرصة أيو لوير كدعوي دابشين واكاس ورغدي وطا ورغدي لوير كلها وسارة فاينانس ويلا الله حريري سدابشين وليسا كسيسي ما دام يكون حد قبي شروع لي ليسا كوسيسي أرك halka markuu marayay waxa dagaal adag dhex maray shaqaalaha taabshiil iyo ninkan dhibanaha ee sharcigiisa si sharci darro loo isticmaalay anigu ma jeclin in codadka gudbiyo oo weliga cod laga baran inaan wax public lagu ka dhacayaan gudbiyo laakiin waa arrin khusaysa shakhsiga dhibaatadu ay soo gaadhay oo maadaama cadaynta koobaad waa haystaa tahay codadkii wixii dhex maray iyo qiraalka ay bixinayeen وحلو دافشين يسوي وضع الدولة السجلية كان بدأ ورقها ciidanka booliska ay soo direen waa kuwa kaaga muuqanaya lacagaha sharcigiisa lagu dirsaday marka khatarhan ku soo dhigno waa kuwa calaamadsan calaamada hurudda ay saaran tahay weeyaan ninkaas dhibaato xun baa soo gaadhay naftiisuna halis bay ku jirtaa horena xitaa waxa uu dhacday dhexdaasa in sidoo kale sharcigiisa inta lagu koobigareystay inta 2 sano xadhiga lagu xukumay in waliba la masaafriyo dalkii lagu tuuray ninkaana wixii lagu haystay wax kale ma ahayn waxa lagu haystay in sharcigiisa daabshiil ay koobigareeyeen ninkana dhibaatadii baa soo gaadhay ninkani wuxuu inoo sheegayaa sababta uu muuqaalkan u duubay ama ila soo xidhay inay tahay inuu dadka uga digo dhibaatada soo gaadhay iyagana sharciga la tiigsanayo waxay la noqotay inaan dee sharciga la maro dadka kale ee Soomaalida ay xawaalada ku xiran si aan dhibaato ugu dhixina inaan dhibta anigu uga dhacday aan uga warramo in magacaygii la koobigareeyey in loogu diray gobolada ay al-shabaab joogto lacag loogu diray magacaygu aan ugu dhibane u ahay cabdishidii cawlba isku galaas baan ahayn muuqayo magacayga way garanayaan haddii ay dee kula socdaan in dadka lagu dhibaateeyo shirkadooda oo dad masaakiino carruurtooda u xoogsanaya ay jeel geliyaan waa in magacooda isticmaalanaya awal ribid iyo shirkada kala dala boolatiga iyo islaantii xashada iibsa iyo qofkii al-shabaab lacagta loo diray oo magaca qof kale lagu dirayna maxaa naga galay isagu jeelka ha gale ay ku raacsan yihiinna dee way maqli doonaan kiliibkayga horta mid baan walaalay sheegaya arrinta ninka ku dhacday waxay khatar ugu jirtaa qof kastoo qurbaha ku nool ama Ameerika ku nool ama Yurub ku nool ama Afrikada kale ku nool ogsoono daabshiil waad isticmaashaa sharcigaagu waa la koobigareystay miyaad u warhaysaa sharcigaaga in meelo khaldan lacag loogu diro loogu isticmaalo oo magarasa dad yog khaldan looga faa'iideeyo adiga waxa ninka ku dhacay adigana way ku dhici karaan intaanad ka fiirso oo waliba isku daray meelaha lacag ka dirsato in liiskii sharcigaaga lacageeyo lagu diray in lagu tuso oo lagu la wadaago ninkan wuxuu sheegay inuu sharciga la tigsan doono shirkaddan daabshiil oo maxkamad soo taagi doono haddii ilaahay ka dhigo oo tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan waraysigan ka qaaday waraysi aad u dheer buu ahaa cilado farsamo u dhacay dartii ayaan u soo wada gudbin karin waa intii ugu muhiimsan baa soo gudbiyey adiga say kula tahay